السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كلنتي وعنا وناكسن waxaan rajeynayaa kala cid ugu dhowna ma jirto kalmad yar baan jeclaystay inaan la wadaago waxaan malanayaa maskiga waan iska yar furi karaa kalmadda aan jecelahay maanta inaan idin la wadaago shaqadii baan ka soo baxay waxaan ku fikiray laba arrimood bal inaan kalmad yar idin ka yiraahdo arrinta koowaad waxa ay tahay fariin aan isleeyahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Turkiga aad la wadaagtid fariinta labaadna waxa ay tahay arrin maalmahan social media aad looga hadalhayay oo ku saabsanayd in Soomaaliya ama guud ahaan maamulada Soomaalida qayb ka mid ay yiraahdeen hal xidho masaajidada culimadii iyo bulshaduna ay ka falcelisay bal arrintaana inaan wax yar ka yiraahdo ayaan jeclaa arrinta koowaad haddii aan u galo sida aad la socotaan dalka Turkiga wuxuu ka mid yahay dalalka uu sida weyn u aafeeyay xanuunkan la yiraahdo COVID-19 dadka maanta oo aan muuqaalkan duubayo oo taariikhdu ay tahay 17 bisha afraad ee 2020 dadka dhimashada dalka Turkiga ku dhintay cudurkan u dhintay waa tirada dushiina idinka muuqata ama dusheeda ka muuqata dadka ilaa hadda uu ku dhacay waa tirada iyana idin muuqata waad arkaysaan 60,000 dad ka badan marka la leeyahay baa cudurku ilaa iminka saameeyay dhimashadiina ay 1,000 iyo dheeraad sii marayso waad garan kartaan cudurkii iyo dhibaatada uu ku hayo bulshadan ama dawladda dalka Turkigu dadaalo badan bay sameynaysaa oo ay ku xakameynayso dadaalada waxa ka mid ah in dadku ay kala fogaadaan ama waxa la yiraahdo social distancing in la sameeyo oo qof kale uu ka fogaado waad aragteen basaskii marka aad baska soo fuushid kursi banaan iyo kursi lagu fadhiisan karo kursiga banaan warqad baa ku dhagan sticker oo la leeyahay isagoo banaan kaga tag ha ku fadhiisan goobihii bangiyadii hal qof baa loo gelayaa laba qof lama ogola goobihii roodhida laga iibsanayay waad arkaysaa safka sida idin muuqata safkaas lagu jiraa qof waliba qofka kale uu ka durkaya roodhidaas la sugayaa qof waliba wuxuu xidhan yahay mask ummadda in badan oo ka mid ah qofkii yaqaanay iminka Ankaraanu joognaa meesha la yiraahdo Kizilay waxay uga ka mid ahayd meelaha ugu buuqa badan ee bulshadu aad isugu timaado hadda marka aad tagtid oo aad eegtid waxaad arkaysaa meeshii cidla boolisku dadku way ka celinayaan xaggan lama ogola noqo baa lagu oranayaa haddii ay dhowr iyo 80 milyan ee dalkan ku noolaa ay u hoggaansameen amarka dawladda haddaba inaga oo Soomaali jaaliyad ahaan maxaynu sameynaa waxaan marmarnaxaa marka aan arko bas dhowr iyo 10 qof ay saaran yihiin oo 6 ama 7 ka mid ah ay Soomaali yihiin waxaa loo arkayaa dad sharcigii dalka jabinaya cudurkii faafinaya amarada dawladda oo dhan iska indhatiraya walaalayaalow waxa laga maarmaana in qofka soo baxaya oo dan u soo baxaya keligii intuu awoodo uu keligii soo baxo cid kale aanu soo raacin waxa laga maarmaana inta aynu awoodno marka la tagayo goobaha xawaaladaha hal qof in loo galo oo hal qof loo yimaado oo dadkan kooxda qof waliba laba qof oo galbinaya uu la soconayo aynu joojino inta aynu awoodnana inaynan duruuf iyo dan mooye inaynan u soo bixine guryaha iska joogno taasi waa fariinta koobaad ee aan jecelahay bulshada inaan la wadaago hadda wiigii hore waxa la sameeyay nolosha oo dhan lockdown baa laga dhigay wadageedin 48 saacadood inaan ka gaashaamay hadda sabtida iyo hadda waa lockdown nolosha oo dhan waa wax soconaya ma jira qofka soo baxa oo bandooga jabiya $470 oo ganaaxa ku waajibaya marka aynu iska ilaalino dalka aynu hogaansano inaga cudurkii inaynu inagu faafino iyo inagu inagu dhaco midna danino ma aha walaalayaal aynu digtoonaan arrinta Soomaaliya wadogtii Soomaaliya adeega caafimaad aad buu liitaa nolosha aad buu liidataa يعني نلاش حاجة عافيمات بلشوا إسكما ورهيسو
cudurkii siduu inagu yahay ma garanayno meelo badan hadda Ethiopia waa laga yimaadaa meelo badan way inagu furan yihiin dadkii Yurub ka yimi ama meelaha cudurka aad ku saameeyay dalkii bay caadi u tageen oo aad ugu dhex jiraan maanta in la yiraahdo waa la digtoon yahay oo waxaana la samaynayaa aad bay fiicnaan lahayd oo talaabo iminka ilaa hadda la qaaday goobi waxbarashada la fasaxay laakiin nasiib darro carruurtii halkan laga fasaxay garoonadii way kubaddi ku wada ciyaarayaan suuqyadii bay wada wareegayaan bulshadii meelihii qaadka lagu cunayay waa la wada fadhiyaa suuqii oo dhan baskii wuu buuxsamayaa muxuu taray marka iskuulkii la fasaxay iminka in masaajidkii la yidhaahdo waa la xidhayaa laakiin ummaddii oo dhan noloshii oo dhan way soconaysaa xoogaa waxaad moodaa caqli badan inaan laga fikirin waxaynu u baahannahay inaynan innaguna caadifad kaga jawaabin marka la yidhahdo masaajidkaa la xidhayaa xaramkii oo masaajidkii ugu weynaa ee muslimiintu ay eeganayeena baa la xidhay cumradii baa la joojiyey xajkii baa khatar ugu jira iminka in la joojiyo waxaa loo samaynayaa intaas oo dhan waa difaac haddii barnaamijkan la leeyahay keligiis yani masaajidka un yaan la xidhayn nolosha oo dhanna ha la joojiyo waa gar laakiin masaajid lama xidhi karo yaan la istaagin meesha ummadda in la badbaadiyo aad bay u fiican tahay laakiin aynu digtoonaano bulsho ahaan inaynu digtoonaano nadaafadda ilaalino la kala fogaado ummaddii la isdhexgalayay iyo dadkan hab iswada siinaya iyo meelaha xidhan ee la isugu soo wada gelayo inta aynu ka digtoonaan karno aynu ka digtoonaano dadka waayeelka ama waaweyn aad buu xanuunkan khatar ugu yahay xanuunkan walaalayaal wallahi khatartiisa inaynu dhayalsanaynaad moodaay yaynaan dhayalsan aadna aynu uga digtoonaano dhalinyarada laftoodu way qaadi karaan waana u dhiman karaan aragti waxaa faaftay dhalinyarada cudurku kuma dhaco ama uma dhintaan sheegadaasa faaftay qof kasta xanuunkan wuu u sameeyey ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka magan galno inana aynu digtoonaano intaynu awoodayno intaasan jeclaysta inaan idinla wadaago wasala allahuma wasalama calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin